بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كسو دواada Saafi channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena horta maanta waxaan idin leeyahay mar kale soo dhawaada inta channelkayga ku xiran maadaama aan muddo hawada ka maqnaa waan idin soo dhaweynayaa waana idin ka cudur daaranayaa maqnaantii aan yara maqnaa hawlo adduun daraadood maanta waxaan jeclahay in aan ka hadlo qodob muhiim ah oo ku saabsan family-ga iyo carruurta oo aan muddo dheer ka fakarayay in aan ka hadlo qodobkaas oo ah dabeecadaha carruurta marka ay yaryar yihiin khaasatan haddaan Soomaali nahay waa iska carruuro badan nahay maasha Allah carruur badan aan dhalnaa carruurta Soomaalida maadaama familiyada ay familiyo waaweyn yihiin oo carruur badan haystaan waxaa nagu badan oo kale carruurta maxay ahayd to fudud ama hyperka ah arrimahaas marka waxa keena ayaan research ku sameeyay oo aan rabaa maanta inaan idin la share gareeyo wixii aan soo helay oo soo ogaaday waxa la yiri horta ilmaha marka kunka maalmood oo u horeeya noloshooda ayaa cunuga maskaxdiisana ay samaysantaa marka idin leeyahay kunka maalmood oo u horeeya ayaa ilmaha noloshiisa ugu muhiimsan tahay waxaan ka wadaa laga bilaabo maalinta ilmahaas caloosha galo ilaa uu 2 sano ka gaarayo waa marka ilmaha maskaxdiisa ay samaysanto waxa la yiri marka maskaxda samaysanka waxay gaaraysaa level waxay mature garoobaysaa level ku dhow levelka maxay ahayd qofka weyn marka waa waqtiga maskaxda ilmaha ay samaysanto oo korto oo kobocdo marka maskaxda ilmaha inay korto oo kobocdo waxay u baahan tahay oo saameyn ku yeelan kara nafaqada uu ilmahaas helo nafaqada marka ilmahaas hadaanu helin nafaqadii saxda ahayd aanu hooyadiis ka helin marka uu caloosha ku abuurmo marka arintaas waxay keenaysaa dhibaato xagga maskaxda ah oo ilmahaas uu yeesho maxaa yeelay hooyada hadaanay ka fakirin marka ay uurka leedahay waxyaabaha ay cunayso oo waliba markay cunayso inay kaliya ka fakarto ma aha inay iyada isnafaqayso ay maskaxda ku hayso in ilmaha caloosheeda ku jirana nafaqadaas ay u gudbi doonto ay wax tari doonto waa inay maskaxda ku haysaa marka hooyada markay uurka leedahay waa inay ka fakartaa waxa ay cunayso iyo waxa jidhkeeda galaya iyo faa'iido ma ka helaysa mise ma ka helayso marka ka soo qaad anaga waa isnaqaanaa Soomaali hadaan nahay wax saas uma fakarno cuntada hooyada way iska uuraysataa oo uuraan leeyahay oo intaas oo bilood ahay oo waa dhalay aan ku xigto hadhowna ilmo ordaayo marka aad uurka qaadid waxa lagu leeyahay marka aad uurka qaadid ma inta aadan uurka qaadin waa inaad jidhkaaga u diyaarisaa in aad uur rabtid uurkaasna haduu yimaado nafaqa ahaan uu jidhkaaga diyaar yahay markaad uurka keentid oo uurka aad yeelatidna aad ilmaha caloosha ku jira aad ka fakartid nafaqada u gudbaysa iyo waxa aad cunaysid iyo waxa aad cabaysid marka anaga saas ma sameeyno ilmihii marka uurkii markuu nafaqa darro ku helo banaankana uu soo baxo nafaqadiisii laga fakirin hooyada aanay ogeyn importance-ka ay leedahay kunkas maalmood ee u horeeya ee ilmaheeda noloshiisa aanay aqoon u lahayn aanay ogeyn waxay u baahan tahay inay samayso marka waxa dhacaya inuu dhasho ilmo maskaxdiisa aanay complete ahayn maxaa yeelay ilmahaas nafaqadii uu u baahnaa ma helin nafaqadii markuu ilmahaas waayo marka waxa dhacaya wax la yiraahdo stunt maskaxdii ma korayso meesheedii ku istaagaysaa wallahi qof brain damage ku dhacayo kale brain damage intuu kugu dhaco sheekadaas waa dhamaatay maskaxdii already damage ku dhacay meeshaas ay ku istaagtay finish marka ilmaha marka uu caloosha ku jiro hadaanay maskaxdiisa sidii loogu talagalay u korin nafaqadii loogu talagalayna aanay helin ilmahaas maskaxdiisa meeshaas ay ku istaagaysaa ogowna markii ugu horeysay inaan idin iri maskaxda ilmaha caloosha ku jira ilaa 2 sano noloshiisa u horeyso waxay u kori kartaa level ku dhow levelka adultka ama qofka weyn levelka that much ay maskaxda ilmaha kori kartaa kunkaas maalmood marka kunkaas maalmood hadaad maxaa la dhahay gabtay
oo ilmahaaga jaaniskaas uu waayay marka maxaa soo baxaya ilmo maskaxdiisii aanay dhamaystirnayn ilmaha aanay maskaxdiisa dhamaystirnayn marka hadhow marka maxaa ka imanaya hadhow waxaa ka imanaya ilmihii inuu ka hooseeyo maskaxdiisa ay ka hooseyso levelkii loogu talagalay inay ka hooseysaa imanaysa inuu iskuulkii la qabsan waayaa imanaysa inuu dambi galo oo aanu maskaxdiisa aanay dee calculation fiican samayn karin oo uu dambi galo in maxay ahayd qofkii raba uu wax ku shuban karo uu kaxaysan karo siduu doono u maamulan karo qofkii marka la maamusho oo suuqa loo taagan yahay maskaxdii aanay fakaraynin iskuulkii uu maxay ku faylgaroobay marka maxaa ku xigaya waa dambi inuu galo inuu jail galo in maxay ahayd noloshiisii oo dhan dee upside down noqoto inuu faqiirnimo ku noolaado maxaa yeelay maskaxdii ma shaqaynayso qofkan waxba ma baran dambiyuu galay maskaxdii waxaasoo dhan waxay kasoo jeedaa nafaqadii kasoo jeedaa hooyada ayaan ilmahaas nafaqadu u baahnaa markuu caloosheeda galay siinin diintana loogu sheegay ilmaha waxaa marka adiga gaalada iyo researchada ay sameeyeen waxay ku leeyihiin kunka maalmood oo hore waa very important okay markaad arrintaas diintaada xitaa u eegtid oo u translate garaysid diinta waxaana loogu sheegay ilmaha in naaska la siiyo la kala fogeeyo ilaa 2 sano naaska la siiyo ilaa 2 sano aa diinta lagu sheegay ka fakar waa iskeenaysaa marka 2 sano ilmaha naaska la siiyo research badanaa la sameeyey diintana waana loogu sheegay ilmaha naaska la siiyo waa ka maskax iyo caqli badan yahay ilmaha aan naaska la siinin waa wax research badan lagu sameeyey oo la ogaaday marka ilmihii marka nafaqa daradii iyo maxay tahay naas la'aantii iyo waxaasoo dhan vitamin la'aan waxaasoo dhan markuu ku dhasho maskaxdii kobaceedii istaagaya meeshaas ku istaagaya marka cunugii inuu maskaxdiisa ay dhinaato ayuu ku soo baxaya marka halka Soomaalida ay caruurta fahmi la yihiin yana arrinta ku dheeraanina halka caruurteena la leeyahay caruurta Soomaalida waa fududahay waa nafaqa xumo ilmaha Soomaalida junk food aad u cunaan junk food aad suuqa hadaa martid chicken showbiska oo dhan caruur Soomaaliya ku jirto hooyooyin Soomaaliya waxay caruurtooda cunto uga gadayaan junk foodka ilmaha maskaxdooda waxbuu u dhimaa rumaysa ama ha rumaysanin anaga waxaan naqaanaa bas inta meesha soo fadhiisanay ina maanta oo dhan ilmaha farta lagu fiiqo oo ilmaha saana yeeleen maskaxdiisa ma fiicin cunugayga waa la kaxaysan karaa cidii rabtaa wax ku shuban karta marka cunugan yaa dhalay cunuga adaa dhalay adaa calooshaada uu ka soo baxay adaa koriyay maalintuu soo baxay dhabta lagu saaray wixii aad siisay iyo wixii aad cuntay oo intuu caloosha ku jiray kaa helay buu ku dhashay oo uu ku soo baxay wixii aad guriga ugu karisay ama aad ku korisay buu ku koray marka caruurta yaan farta lagu fiiqin wiila isnaqaanaa iiga sheekeynaa holiday samarkii caruurtiisa u kaxeeyay marka waxay tageen maxay ahayd waxay tageen tarkeeda tageen holiday ma garanaysaa all inclusive ay qaateen cunto badana meesha la taalay yiri ma garanaysaa marka wuxuu ii sheegay caruurtiisii inay maxay ahayd junk food lay raadinay McDonald iyo burger iyo ice cream iyo coke wax aan ahayn ba caruurta meesha cuntadii meesha la soo dhigay oo ciyaalkii waxay ka raadinayaan burger coke iyo ice cream marka wuxuu leeyahay wiilku wuxuu leeyahay waxba ma cunayaan waxa cunto meesha yaalay maxay ahayd ilmaha Soomaalida waxba ma cunaan cunto ma yaqaanaan ilmaha Soomaalida waa dhageystay waxaan ku idhi dhageyso ilmahan cuntada aad sheegaysid ma bartay horta adig ilmaha waxa bartay oo lagu soo koriyay una cunayaan don't blame them adiga is blame garay ilmahan hadaa bartay inay coke cabaan oo junk food cunaan oo maxay ahayd markii cunto naflaho sharaf la karsho ay junk raadiyaan hadii aad bartay yaa blame kale maadaa blame kale mise ilmaha blame kale ilmaha intay supermarket ka tageen oo lacag qaateen oo taroolo qaateen ma soo adeeganin adaa u soo adeegay wixii aad soo adeegtay oo aad karisay cuneen marka hadii ilma IQ-gooda hooseeyo ay ku dhasheen
ilma maxay ahayd cuntada iyo aan garanaynin sida noocyada ay tahay oo ku program garaysan inay junk iyo coke iyo maxay ahayd cereal cunaan haddii ay gurigaaga joogaan waxaasoo dhan farta ha ku fiiqin ilmaha farta adiga isku fiiq adaa ka mas-uul ah waalida iyo wareerka iyo ilmaha la leeyahay waa la kaxaystay iyo waa la maamushay iyo headayga jiro oo dhan adiga isbaleym garay adiga waalid isbaleym garay baleymka ka leexi ilmaha waa ka gardaran tahay ilmaha waa khaldan tahay ilmahaaga wixii aad siisay ingiriiska waxay dhahaan you are what you eat ilmahaaga waxa aad siisay oo aad ku korisay oo aad bartay una yaqaanaan marka arrintaas halkaasaan kaga baxayaa waxaan maxay ahayd to idin leeyahay hooyooyinka hadda caruuraha dhaldhalayo marka aad iska uuraysanin oo uuraan leeyahay kaliya ma aha iyo inaad taleefona dirdirto oo tiraadid uura yeeshay number 4 oo number 5 oo number 8 tira ma aha ilmaha tira ma aha waa bini aadan adduunkan kusoo kordhay oo u baahan inay nolol fiican ku noolaadaan adduunkana wax kusoo kordhiyaan ma aha adduunka inaad kusoo kordhisid dad wareersan oo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo say u tashtaan iyo say u fakaraan aan garanaynin inaad adduunka kusoo kordhiso hadhowna aad tiraadid maxaan sameeyaa ilaaha isiiyay ilaahay sheekada haddana ilaahayna haddana ma garanaysaa lagu xadgudbo maxaa yeelay shaqadaadii aad qabsan weysay ilmahaad baleem garaynaysaa ilaahay baad baleem garaynaysaa adigii isma baleem garaynaysid adigii isma fiirinaysid marka maxay ahayto waa very important qofkii raba inuu caruur caafimaad qaba dhalo oo less headache ah waa inaad maalinta aad uurka yeelatid maaha maalinta aad uurka yeelatid maaha ka hor marka aad balaan garaynaysid inaad uur yeelatid waa inaad horta adiga isfixi garaysaa labo marka adiga kow isfixi garaysid labo waa inaad ilmaha caloosha aad ku sidid every minute aad ka fakartaa aad tiraahdaa okay maanta kana cunayaa maxaa nafaqo ah ugu jira ilmahayga waa inaad ka fakartaa kadib markuu ilmahaas dhasho diintaada lagugu sheegay waa inaad nuujisaa 2 sano waa inaad naaska siisaa ilmahaas sababta lagu yiri nuuji waa sabab benefit u leh adiga caafimaadkaaga iyo ilmaha aad dhashayba marka waxyaabahaas oo dhan anaga ka boodboodaynaa hadhow wixii markii laga boodboodo natiijadii kasoo baxdayna kuma qanacsanin oo habbi kuma nihin marna waxaan leenahay ilaahay baa isiiyay sideen yeela marna waxaan leenahay ilmo wareersanaan dhalay oo saan iyo saan ah marka maxaa dhahay sariirtaada maxay dhahay ingiriiska sariirtaada saad ugu goglatid ugu seexo marka ilmahaaga haddaad junk iyo waali iyo qashin iyo sonkor aa ku korisay oo ilma maxay ahayto duulaayo oo marka albaabka laga furo oo kaa dhex baxaayo ay yihiin adiga blame yourself ilmaha I feel sorry for them ilmaha sida qaladka loo koriyay oo hadhow taleefanada la diraayo la caaynayo la leeyahay maxay takiya meesha ordaay iyo tiya saan yeeshay iyo la dhahayo waa khalad videoga ma raba inaan dheereeyo intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo qofkii su'aal qabo ha isoo weydiiyo hoos igu soo weydiiyo qofkii comment qaba hoos kusoo qoro waxaan idinka codsanayaa videogan haddii aad ka faa'iidaysateen inaad thumbs up siisaan subscribe garaysaan inta aad jeceshihiin la share garaysaan والسلام عليكم ورحمة الله.